بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته همبلي waxaan ummadda Soomaaliyeed dhamaanteed ugu hambalyeynaya munaasabada sanad guuradii 47aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed ee runtii oo ah aan hooyadii dhamaan ciidamada qalabka sida sidoo kale ciidankii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee la aasaaso maanta waxay noo tahay maalin farxad leh saakay munaasabadii aan tagnay dugsiga tababarka ee General Kaahiye haddana waxaan joognaa waa saldhigga degmada Hodan waxaan nasiib u yeeshay maanta inaan saldhiggan ku soo booqdo oo ila joogan gudoomiyaha degmada Cantoobo iyo sidoo kale aan taliyaha saldhigga ee degmada Hodan gaashaanle Cabdifataax Bashiir Cali oo runtii aan saldhigga aad aragtaan maanta aad ka aragtaan heybadda iyo bilicda iyo quruxda wanaagsan waxa asaas u ah yani mabaadi'da uu ku shaqeynayo saldhiggan oo runtii mid ku dayasho mudan taasoo ah cadaalad in dadku cadaalad helaan oo marka aad soo gashaan dadka sida loo maamuusay cadaalad ay helaan iyo sidoo kale amniga in laga shaqeeyo oo laga jawaabo wixii amni darro ah iyo mid ugu dambayso oo dib u dhiska iyo bilicda ee degmada guud ahaan laakiin gaar ahaan saldhigga sida aragtaan aad baan u qiirooda maanta ayadoo ay tahay munaasabadii booliska ka soo wareegtay 47 sano maanta saldhigga degmada Hodan inuu heerkan u egyahay oo quruxdan u leeyahay waxa mahaddeed iska cid walba qayb ka qaato uga mahad celinayo gaar ahaan gudoomiyaha degmada iyo sidoo kale taliyaha saldhigga oo iskaashaday isla shaqeeyay wax qabta dadka marka iskaashadaan wax badan baa ka soo baxa waxaan runtii ugu baaqayaa dhammaan saldhigyada kale dhammaan qof walba oo raba bilicda inuu ka shaqeeyo ha ku tusaale qaato maanta mid uu ka arka degmada Hodan gaar ahaan saldhigga degmada Hodan ha ku tusaale qaato oo ma ahan kaliya inay nidaamkii ilaalinta sharciga iyo sareynta sharciga ee markasta hormarinayaan laakiin xitaa waxay ku dadaaleen bilicda iyo dadka inay noqdaan isdhexgalka bulshada oo qayb ka qaato iyadoo amniga la sugayo cadaaladna ay asaas u tahay marka maanta midaan aragno tusaale u tahay waxaan leeyahay sidoo kale saraakiisha ciidamada booliska Soomaaliyeed dadka sidaan oo kale waa in la dhiirigeliyaa la abaal mariyaa lagu faanaa maanta sharafay ii tahay iyadoo munaasabadii ay ku aadan tahay 20 December 2017 ay ku aadan tahay 47 sano kadib in saaka loo dabaaldego munaasabadii aasaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed haddana sharaf weyn ay noo tahay inaan saldhigga degmada Hodan inta nimaadno oo aan ku aragno nidaamkii shuruucda iyo ilaalinta iyo sugidda amniga iyadoo ay ka jirto isla markaasna bilicda aragtaan ay ka jirto waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka degmada Hodan degan in wanaag halkaan ku aragteen wada shaqeyn buuxda ala sameeysan waxaan uga mahad celinayaa qof walba oo qayb ka qaatay markaan ku celinayaa waxaan ugu baaqayaa dhammaan saldhigyada oo kale tusaalaha inay qaataan waa tusaale u gaar ah waa tusaale degmadan u gaar ah oo ayaga is abaabushay ayaga tabarucaad ku sameeyay ayaga xoogooda ku tashtay ugu dambeeyna soo saaray intaan waxaan dhihi lahaa dhalinyaro marka ay hoggaan qabtaan oo dhalinyaro lagu aaminay xilalka waxa ka soo baxo inay bulshada u damqadaan dadkana ay ka eegaan dhinac walba ay ku jirto bilicda ayadoo amniga iyo cadaaladda markastaba la sugayo waan u hambaleynayaa mar kale hambalye gaar ah waxaan u diray dhammaan ciidamada booliska Soomaaliyeed iyo qoysaskooda iyo carruurtooda anoo hambalye guud u diray hambalye gaar waxaan u dirayaa degmada Hodan iyo sidoo kale saldhigga degmada Hodan waxaan uga hambaleynayaa munaasabadan quruxda badan ee booliska taariikhda u leh iyo maanta taariikhda ay sameeyeen iyo bilicda iyo quruxda ay soo celiyeen iyo mid ka wanaagsan ay ka sameeyeen saldhigga degmada Hodan aad iyo aad ay u mahadsantihiin hambalyo